salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegnay qodobada war iyo wacalan idinka hayna carreede waxaa ugu dooro madaxweyne cabdiraxmaan cirre oo furay dugsiga dhaqan celinta ee mijacseeye dagaal qaraadh oo ka dhacay ceelka garoowe axmed hurrahaariye oo aan loogeyn waxaa laysaga soo dhigay cabdimaalig coldoon oo sheegay inuu ka baxay baryaro bixi kadib cararkii oo ku galay buuhoodle diyaarad ku socotay ceelka xamar oofka ciida dartay miyaa la gaadhay boqolkii dhalaarood ee ay qabsatay xukuumadda somalilan hebelkay farmaajo oo bilaabay dhaqdhaqaaq siyaasadeed siyaasi khadar cali caarshe oo gaadhay furiimaha hore ee dagaalka ah iyo weliba xuutiyiinta yeman oo maraqooda cabay dooxatada wararkaasi iyo wararka dheeraad ayaan ku soo dhawaada barnaamijkeena wargelin muhiima waxaa gebageba ku dhow ka cumraysiga ay samaynaysa xamladda almustaqbal kaasoo ay ka hadheen maalmo kooban waana keliya $300 xamladdu waxay kuu soo duubaysaa fiidiyoyo waalidka oo laga cumraynayo iyo shahaadooyin caddaynaya fadlan hore u gaadh intaan muddadu kaa dhammaanin la xidhiir telefoonada shaashada kaga muuqda wararka ka imanaya dalka yeman ayaa sheegaya inay qolyaha gundhatiga gaabani haatan u cafaariidsanayaan sidii ay u weerari lahaayeen minawaarada iyo baaniheegyada reeraha washington ee guuraynaya badda gudubsan iyo weliba iliisha baabalmandab afhayeen u hadlay maryaclasta dalkaasi ka araaqaysata ayaa tilmaamay inay si toosa u garaaci doonaan saldhigyada ku yaala dalka jabuuti kuwaasoo uu sibir saaray inay yihiin meelaha ay ka soo kacayaan cirjiidhaha dagaalka ee garaacaya dalka yeman gaar ahaana sanca iyo hareeraheeda dhowrkii caanamaal ee lasoo dhaafay ciidamada maraykanka ayaa iyaguna duqaymo baan ugu garhaya meelaha ay gabaadsadaan guddigaabta dalka yeman kuwaasoo guyaashii u dambeeyeyba laga taagna khilana wiilana dhinaca kale duulka laga fadhihi waaye ee dalkaasi ka adamiyeysta ayaa 8 go ee u dambeeyey dayrahoodii muruqa ku haystay ceelka sanca halkaasoo ay gebiyahaanba diideen wax soo mara badda dhereran ee loo yaqaano badda cas guntigaabta ayaa teer iyo muddadaasi u fakiirnaa dabra weeraro aan lagu bixinaynin maraakiib ganacsi kuwa dagaal doonyo kalluumaysata ah dartamesle ah ama dalxiisa iyo wax allaale wixii ay arkaan ama u muuqda ama ay miidadowsadaan amaba ay maleeyaan ama ay mutuhiyaan amaba ay bidhaantooda arkaan gaar ahaan wax kasta oo biyaha badda cas dul sabaynaya geesta kale guntigaabta ayaa garsaar kaga dhigay gantaallo iyo gamasyo mariidaysan 3 magaalo oo ay ka ceelhayaan duulka dooxata la yidhi kuwaasoo ay hiil uga dhigeen qolyaha cunaha lagu hayo suryo cururqo iyo intaysa inkastoo ay isku dayeen dalalka reer galbeedku inay gacan wax kaga wanaajiyaan guntigaabta dalka yeman haddana arrintaasi ayaa ku goraraysay biyo coldhaansho iyo weliba dhuusa tuugtiyo aanay weli gabar ka maraasnayn taagta iyo tukurta qolyahan sanca looga giigay maadaama oo ay darkan gundhatiga gaaban taakula ka helaan xukuumadda kacaanka islaamiga ee iiraan oo ay isku daaban yihiin amaba ay isku manaqataysan yihiin dooxatada oo ka halcelisay gamasyada ay guddigaabta dalka yeman dheegooda ku soo liishaamayso ayaa tibaaxday in iiraan ay qolyahani ku soo biirisay gantaalaha guuxooda ka dheereeya ee sida daran waxoolkaada dhowaan ayay ahayd ka gadaal markii ay xuutiyiintu madhmadh kaga daadiyeen markabkii ugu weynaa oo uu lahaa maraykanku oo ku sugnaa biyaha badda cas kaasoo dhalooyinka layska arko laga dheehanayay qiiqa qaaca iyo urada ka baxaysa sidoo kale qolyahan ayaa dhulka soo dhigay fiidmeero badan oo uu maraykanku dambaabo kuwaasoo ah kuwa hadda uun gacanta laga soo qaaday ama eegan lasoo farsameeyey isla jeerkaasna ka mid ah kuwa ay qolyaha washington sida weyn ugu dhaataan kuwaasoo la tilmaamay in midiiba qiimahoodu ku kacayo malaayiin waraqaa maraykaana si kastaba ha ahaatee taanooyinka ku baxaysa habasta iyo fadhiisanowda maraykanka ee ilaa iyo hadda gundhigaabta dhulka ogolaysiiyeen ayaa la tibaaxay inay kor u dhaafayaan $1 milyuun shilimaadka doolar la yidhi iyana waxaa haatan soo gebagaboobay ama la gaadhay boqolkii dhalaarood ee ay dowladda madaxweyne cabdiraxmaan cirre qabsatay in la eego ama ay dhug u yeelato bulshada reer somalilan taasoo ay xukuumaddani sheegtay inay golo keeni doonaan hingallo iyo wacdaro isla jeerkaasna ay soo bandhigi doonto waxqabad madh iyo taag leh oo ay dheer tahay ama ay kaga fiican tahay dowladihii ka horreeyey iyada oo talada dalka somalilan hore loo soo weliyey gaar ahaan kuwii kulmiye ee jamhuuriyadda somalilan ka soo arriminayey waxyaalaha ay bulshada reer somalilan sida gaarka u bigacsanayaan ayaa waxaa ka mid ahaa socdaaladii magiigana ah ee uu madaxweyne cabdiraxmaan cirre ku tegay dalalka dibadda gaar ahaan jeesadka midoobay oo uu tiraba 2 jeer fooda geliyey 3 galgeel ee uu mayalka u hayay jamhuuriyadda somalilan taasoo aan ilaa iyo hadda laga bixinin faallo ku filan oo ay dadweynuhu ku qancaan tiyo ay reer somalilan ku seebiyeen ama ay u kala dhigeen amaba ay ka istaageen dhinacyo badan oo yeeshay faraaro iyo faltiiqyo kale oo laga geesta kale wasiirka wasaaradda diinta iyo weysooyinka somalilan cabdilaahi baashi oo ka halceliyey socdaalka madaxweyne cabdiraxmaan cirre ee imaaraadka carabta ayaa tilmaamay in dabuubihii uu madaxweynuhu ka jeediyey madalihii kala dambeeyey ee goradda la isku geliyey
ay gebi ahaanba jeedaaliyeen dad kor u dhaafaya 50 milyuun oo madax madow oo dadaca kuwaasoo caddaan lahaa oo madow lahaa oo casaan lahaa oo maariin lahaa oo midabayn lahaa oo iska dhal lahaa oo dad waaweyn lahaa oo dar yaryar lahaa oo dumar lahaa oo carruur lahaa oo dhallinyaro lahaa oo yerada lahaa oo gure xooglayaal lahaa oo gadmadoobayaal lahaa oo guxushaayo lahaa oo gashaantiba lahaa oo guudalday lahaa oo foodley lahaa oo fidhiqa lahaa oo sindheer lahaa oo suraafa lahaa barbar kale wasiirkiisa cabuudha madaxtooyada Khadar Xuseen Cabdi oo madaxweynaha daba ambuula gaar ahaan labadii socdaal ee jeesadka midoobay ee Imaaraadka Carabta ayaa isaguna tibaaxay inay la kulmeen dad badan dad yar dad dhexe goosan turbo qof wadar dawlado dalal dhex yaallo jeesas qoysas beelo reero gaashaan buurdan wadaago isma dhaxal shisheeye sokeeye nacab colol iyo weliba jaalayaal intaba kaasoo aan haba yaraatee ma dhaba sarin ama sugin wixii ay kala muteen duulkaasi weli waxaynu ku jirnaa golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne cabdiraxmaan cire isaguna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda oo hadal wax iskaga dayay markii ay ka soo degeen gegida cirmaaxu caga dhigtaan ee ceelka Hargeysa ayaa halkaasi ka shubay hadal tiro taaqaawati qalu badnayd taasoo ay dadweynaha reer Soomaaliland qofba dhinac u toocsaday in la wadi jirayba socdaaladii madaxweyne cabdiraxmaan cire ee gudaha dalka Soomaaliland ayuu ku tagay gobolada Awdal iyo Hawd waxaana halkaasi dhigay dhagax waraabo tuur ah kaasoo uu la toogahayay in laga bixiyo 2 dhabo oo falfal ah ama jinni falay ah kuwaasoo midna boorama ka baxdo midna baligwad la gasho wiilkaad nagala socotaan waa Taar TV siyaasi Khadar Cali Caarshe iyo dharaartii maanta ayd booqday ciidamada madaniga ee SSB gaar ahaan taliska beesha Cali Bare kuwaasoo uu kala hadlayay qaramaynta ay wado xukuumadda madaxweyne cabdiraxmaan ciro siyaasiga ayaa halkaa waxaa ku soo dhaweeyay saraakiisha iyo hoggaanada SSB iyagoo ku bogaadiyay booqashada uu fooda ku soo galiyay taliskooda siyaasi Khadar Cali Caarshe ayaa u sheegay ciidamada inuu u socday sidii ciidamada SSB ay uga horbayri lahaayeen in la qarameeyo iyagoo ku sugan taliska ay difaaca kaga jiraan ama ay rududaan wuxuu sheegay inay qaramaynta ka dheebi doonaan helitaanka gunno ku filan agab ciidan iyo xuquuq la mid ah tan la taarto ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland waxa uu tibaaxay inay sidaa u ogaadaan oo ay dowladda kula shaqeeyaan isla markaana aanay marnaba wax xun meesha soo dhiganin ugu dambeyntii ciidamada SSB jeedhooda Cali Bare ayaa siyaasiga uga tibicsiiyay inay gebi ahaanba ku gowracan yihiin wixii loogu taliyo taasoo aanay dhan ka dhaafi doonin waftiga noo yimi oo noogu yimi jiida hore ee halka burakayn waftiga oo hadda la ka dhigo gudoomiyaha tacliinta sare ee Soomaaliland adeerkay Salmaan Dirir Cabdi iyo adeerkay siyaasi madax bannaan Khadar Cali Caarshe hadii alla ka dhigo siduwaha deegaanka Mubaarak Madoobe gudoomiyihii degmada oo qiimo badan iyo sharaf badan agteeda ku leh soo dhawaada halkani waa iyo marka sharafta kale idin la socota halkani waa burarkayn ma hajiid mana aha guri aynu ku faani karro waa guri aynu hore isaga lahayn jirro deganaan jiray oo aynu leenahay oo aynu haddii alla ka dhigo joogno haddana aynu taagannahay oo joogno dagaal unbaa ka yar bilowday insha allah goobo kale oo ka durugsan haddii amni iyo nabadgelyo layna siin waayo layna nabadgelin waayo goobo kale oo ka durugsan ayay ka bilaaban doontaa oo tegi doontaa waana looga jawaabi doonaa insha allah idinkuna waa ku mahadsantihiin booqashadiinna qiimaha iyo qadarinta mudan leh ciidanka iyo wixiini aynu isla wada fahanay isku wada dareenka nahay isku wada haddii alla ka dhigo caqliga nahay isku wada ayna waxba kala cululbanaynin boqolkiiba boqol aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ciidan weynaha ciidanka Cali Bare madaniga ah oo la dareena ciidamadiisa kale SSB halka jooga ee aan ku faanayno ee cadowga fugeeyay ragii asaasi weey ragii ku tacab badnaa waa ragii maanta gaadiid iyo hub iyo biiba iyo qursiino inoo aasaasay ee inoo sameeyay maanta waxay nagu taliyaan baan yeelay wayna dareen difaaca qaranka laga dilayeen hammi baynu nahay mid baynu nahay wixii ay noo hubeeyeen wali halkoodii bay taageen maanta wayna dareen yaad isaguna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa maanta socdaal baariqaada isugu maray deegaamada hoos yimaada gobolka Saaxil gaar ahaan Berbera Sheekh iyo Majacsaye wafdiga madaxweynaha ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada xeebada Berbera halkaasi oo uu ka sii gudbay deegaanka Sheekh oo uu tababar uga bilaabay ciidamadii ugu horeeyay ee dhawaan la qarameeyay
madaxweynaha ayaa ka duraantay ciidamada madaniga ee SSB iyo G36 inaanay ka buuxsamin xeryaha carbinta ciidamada ee dalka ku yaala isla markaana ay degdeg isku soo shubaan talisyadaasi. dhinaca kale taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland Nimcaan Yuusuf Gaxnuug ayaa gabal ka cadeeyay ciidamada maanta la tababaraya ay hore u ahaayeen ciidan beeleed oo isla jeerkaas ay hadda wixii ka dambeeya noqon doonaan ciidamo qaran oo dalku leeyahay. waxa uu sheegay inuu bogaadinayo dhammaanba beelaha ay ka soo jeedaan ciidamadani kuwaas oo xukuumadda ka ogolaaday in askaraasi la qarmeeyo. sidoo kale madaxweyne cabdiraxmaan ciro ayaa dhagax dhigay dhismayaal lagu kordhinayo taliska tababarka ciidamada ee degmada Shiikh halka uu xadhigga ka jaray dugsi dhaqan celin loogu sameynayo carruurta reer Somaliland kaasoo lagu bari doono waxyaabo kale oo laga barbarka kale madaxweyne cabdiraxmaan ciro ayaa furay dib u dhis iyo qolofri lagu sameeyay dhabaha isku xidha deegaamada Burco iyo Berbera kaasoo ay ka howlgashay wasaaradda gaadiidka iyo weliba horumarinta jidadka Somaliland. isagana waxaa la dheehanayay taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland Axmed Hurre Haariye oo ay garbinayaan ciidamada ilaalada u ah madaxweynaha Somaliland kuwaasoo riixayay oo dhinaca u saarayay isla markaana ka hortagayay inuu taliyuhu ka soo ag muuqdo madaxweynaha. arrintan ayaa gebi ahaanba qabsatay baraha bulshada iyadoo la qaadaadhigayay inay taliyaha carruur yeeshay kuwaasoo u muuqday inaanay gebi ahaanba garanaynin. maanta waxaan rabnaa insha allahu tacaala warbixin inaan ka bixino masjid jaamici Caynaba muddada sida caadada inoo ahayd aynu marbax ka wareysan jirnay halka uu marayo hore saynu la soconay sanadkii hore Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu guuleeyay qaybtii hoose oo inoo dhameystirantay oo si wanaagsan loogu cibaadeysto dhinac walba haday aqoon waxbarashadii tahay iyo haday cibaadadii tahay salaadihii iyo haday quraan akhriskii tahay ma sha Allah qofkii arkay wuu arkay inta kalena way daawatay Ilaahay baan ugu mahad celinaynaa inuu guuleeyay qaybta hore. walaalayaal saa ogeydeen waxaan soo dhagax dhignay qaybtii labaad muddo hadda dhowr bilood laga joogo dhagax dhig ayaynu indhaweydba ka hadli jirnay dhagax dhigaasoo inoo hirgalay. waxaynu maanta ku xijinaynaa dhagax dhigii kadib fayskii hore qaybta sare fayskeedii hore oo maaragtay qaybteedii koobaad ah oo lagu qiimeeyay qiimo ahaan lacag gaadhaysa $150,000 waa qaybta ay ku jirto macaan shubka sare wax walba ay ku jiraan oo qiimaha lagu qiimeeyay ayaan rabnaa inaan ka warbixino iyo wixii aan u hayno walaalayaal lacagta 150ka fillaahi alxamdu $40,000 waa haynaa gacanta ayaan ku haynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala intii la baxday miisaanka xasanaadka ha u saaro. waxa kale oo aan haynaa 960 xabo oo sibidha sida aan warbixinta hore u soo sheegnay 3,200 xabo sibir ayaa galaya masjidka markaas 900 iyo dheeraadka waynu haysanaa fillaahi alxamdu. walaalayaal qofkii ka qayb qaadanaya sibir qofkii ka qayb qaadanaya materialka kale ee galaya waa u furan tahay. ilaahayna waxaan ka baryayaa jalla jalaaluhu sidoo tii hore inuu guuleeyay uu tanna inuu guuleeyo. marka waxaan uga baxayaa walaalkay Sheekh Maxamed Kaariye oo runtii ah lafdhabartii masjidkan raggii hore uga soo shaqeeyay isaga iyo culimo badan oo hore Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ha u saaro maantana